وزير كريمها جودها جمهورية الصوماليلاند عبد الله صنداري ايدان لو سو jeediyay maxay tahay eedeynta gobolka Salal nabadda uu ka wado wasiirka arrimaha gudaha wacayo cid ka soo horjeeda kana tirsan beelaha Gadabuursi beel kamid ah iyo arrimo kale oo inoo soo raaci doona videogan si qaybiya sidoo bulshada u gaaro hadda wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan waqti xaadirkan magaalada Xariirad muxuu yiri inuu ku socon garadkii degmadan Xariirad waxaan marka hore aad uga mahad celinayaa in ay marka hore dad ku suntan nabadgelyada oo magaaladan ay joogaan dagaal kama dhicin laguma kala qaxin iyaga naftooda u ogolaado og nabadgelyadu macaanka leedahay taawon ugu mahadnaqayaa haddaba waxaan aad halkan ugu mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga uu geliyay wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdalla Sandheere gobolka Salal dadka walaalaha ee degan sidee nabad u qaataan aynu ognahay baryahanba inuu ku mashquulsan yahay nabadeyn qaasatan dadyooga ku nool magaalada Xariirad ee horena nabad ku wada noolaa maantana cadeeyay in nabadaasi si adkeenayaan waxaynu leenahay reer Xariirad aad baad u mahadsantiin annaga hadaynu nahay Somalilandeser waxa wanaag inoo ah nabadda iyo isku duubnida Somaliland waxaynu leenahay wasiirka arrimaha gudaha juhdiga uu geliyana waa waajibaadkiisii qaran qayb kamid ah inuu gutay haddaba markay sidaa tahay arinku waxaynu ognahay beela kamid ah beelaha Gadabuursiga rabana inay munaafaqad ka dhex shaqeeyaan bal horto wasiirka arrimaha gudaha eedeynta loo soo jeediyay maxaa ka run ah maxaa ka been ah laakiin dadka xun ee aynu ognahay in dibidaha laga waalayo waxay bulshada la wadaagayaan inay tahay mid qalad ah bal horto aynu ku socono muxuu yiri ninkan wasiirka arrimaha gudaha gobolka filimku ka matalaya ujeedadu u socdaana nabadeyn maahay waxaad moodaa in jogooyin la kala wareegayo nootaayin la kala saxeexanayo uu doonaya hadana Gadabuursiga kala saaro kuya ma taqaanay dad gaar ah la hadlayaan Soomaaliya waa ay dadka la hadlay markaa dhinacna baabir cilmi la hadlay ujeedadiisu ahayd oo inta kale lama hadlay ujeedadu socday macnaheedu inuu dad tafaraaruqi Gadabuursiga markaasuu sidaba wadaa 7-6 qof oo bilaa damiiro oo Gadabuursiga oo uu tulkood ka hor caayaya oo daqiiqad joogmay tulkood ka hor caayo bilaa damiiro oo iyaguna waa qowga ma aragtay markaad uu tiraado ka dabeera Soomaa dadku ku sii hurunay lambar 1 ka yahay ninkaas ee madax isku sii gelinay wasiirka arrimaha gudaha nabadeyn buu joogaa sidoo dabka u hurinaya waayahay haddaba waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago eedeynta ninka u soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha inay tahay hudur iyo been in waxaan waxba ka jirin waa marka xaqiiqda aynu ka hadalno wasiirka arrimaha gudaha waa la maagayaa cidda maageysana waa reero kamid ah reeraha Gadabuursiga ee gobolka Salal degan ha ugu badnaadaan haday doonaan waa reerka la yiraahdo Maxamed Case cidda diidan nabadda ay ka meermeereysanayso ay wasiirka arrimaha gudahana eedeynaysa waa reerka Maxamed Case ee kana mid ah reeraha Gadabuursiga reer kamid ah maxay ku diidan yihiin inay walaalahooda nabadda saxiixay inay ayagana la qaataan ee laakiinse dacwareenkan ee wadaan wasiirka arrimaha gudaha eedan oona lahayn ay ku jeedinayaan war waxaanu leenahay reerka Maxamed Case munaafaqada iyo dhibta cidda wada waa idinka waynu ognahay idinka ku orkacsada Gadabuursi yiraahda Gadabuursi waana lagu soo duulay maanta inaan nabadda diidaan cidniga yeelaysa baana jirin waad ku qasbantihiin in aad saxiixdaan heshiis kasta oo wado wasiirka arrimaha gudaha waayo dalka asaga mas'uul ka ah waxaad ku andacoonaysaan diradhaw iyo boorama mootago waqtigeeda marka la gaaro ayuu tagi wasiirka arrimaha gudaha oo labada dhinac labada ugaas oo cilaaqad la sameynaya laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa aqal marka la dhisaayo sayska hoos la adkeeya in dadka walaalaha ah ee wiili abtigi ah in marka hore qoryaha isku sita in nabadi laga saxiixo waa meesha ku jira weeyaan waxaan cod dheer leeyahay
beesha ciise way ogashahay heshiis laakiin cidda aanan ogolayn waa reerka maxamed case cid aad ku orkacsan kartaanna ay aad oran kartaan gadabursiyo duulaan baa loogu soo yahay wallahi billahi talaynaysa jirin waayo nabadda idinkaa diidan war Abdiraxmaan Saydici oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland baa xataa la socday faqi aadan wixii ka dhacay shalay bayna ogeyn nin dhanoo mas'uul ah ahna wasiirka arrimaha gudaha in aad ma garanaysaa saa doontaan aad ula hadashaan aad ka been abuurataan qalad bay nagu tahay inaad dhiibsataan dantiina ku jirta cid kale oo gadabursiga maanta ay munaafaqad wada ma jirta aanan ahayn reerka maxamed case gadabursinimada idinka inagu badisaa gadabursinimada idinka wax ku hela gadabursinimada idinka wax nii tartaa maantana nabad baad diidaysaan in aad nabadda saxiixdaan waa mid aad ku qasbantiin sankana kaga dulaysantiin waxaynu leenahay dad yoga gadabursiga qiirada qaaday oranaya ciise anaga nagu soo duulo dhul naga qaadanaya ee halka furuma hore tagay war iskaga soo baxa hadday nabadda diidaan reerka maxamed case hadday isdifaaci karaan hay isdifaacaan ilaa xaqiiqdeenu ka hadlaynaa inay xukuumadda ay dhaliilaan waa mid qalad ah wasiirka arrimaha gudaha wuxuu matalaa madaxweynaha waayo waa ninka dalkan mas'uulka ka ah in ijaafo aan loo joogin aan waxba aana ka jirin reeraha kale ay gadabursiga cid u soo jeedisay ma jirtaan idinka ahayn maxamed caso munaafaqada aad tolkiina ku dhex wadeen ayaad iminkana la tagteen ma garanaysaa wasiirka arrimaha gudaha war waxaynu leenahay qasab bay nagu tahay reeraha halkaa joogay gadabursina iskaga soo baxa furmaha shalay waad u hiiliseen waa niman tolkiina maxamed casaad oo itaal leeyahay daa iska difaaca dadka deegaanadiisa sheeganaya daa u fiirsadaa daba dadkii waad qaxiseen waad barakiciseen gadabursi waad garab ka hesheen maantana wasiirka arrimaha gudaha iyo xukuumaddaad ku soo kala wareejinaysaan ayaa waxaad leedahay wasiirka baan reer buu u socdaayo gadabursi oo kala dhantaalayaayo asaga waa reer annagana waa reer arwaxaas cid haba yeelaatee laga akhrisanayo ilaahay abuurta ma jirto munaafaqadda aad wadaan haddaad tihiin reer yooga maxamed case joojiya haddaad jooji weydaan futadaad leerinaysaan oo ilaahay ugu ogyahay cid aad garab ka helaysaanna wallaahi inuusan jirin oo billaahi inuusan jirin oo tallaahi inuusan jirin nabaddu waxay dan u tahay dhammaan reer Somaliland haddaad idinku maxamed caso mashruuc kale aad wadataan ee cali baxar aad ku feelsan tihiin dee caddaysta nabad maxaad u diidan tihiin waraada gadabursi isma saarna nin walba reer buu ka dhashay haddii xaqiiq bay nii sheegi marka waxaynu leenahay bulshada Somaliland waxaan u sheegayaa xukuumadda oo hormuudka u yahay wasiirka arrimaha gudaha waxa lagu soo sheegay ee been abuur ah wax alla wax ka jira ma jira waa been abuur munaafaqadaasna reerkaasaa wada oo ka dhashay madaxweyne ku-xigeenka eegada oo ka dhashay kan wasiirka biyaha sheegta oo ka dhashay kan wasiirka macdanta sheegta u fiirsada hadaba oo ka dhashay ninka la yiraahdo Beyle waa reerka maxamed case bal u fiirsada hadaba waayo cidda nabadda diidan ee wax kale sida u hoosgelinaysa waa iyaga wayna ku qasban yihiin annagu mas'uul kama nihi nabadda hadday qaada waayaan tallaabo in laga qaadaa waajib ah gadabursan dhabarka u sii jeedinaya